munaasabada loo qabtay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii 2021 wasaaradda tamarta iyo macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ka qabsantay xarunta wasaaradda waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland wasiir ka mid ah xukuumadda gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha madaxa bannaan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudan iyo mas'uuliyiin kale iyo shaqaale weynaha ka hawlgala wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland Mukhtaar Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha أحمد رجال حبين كهذا ليس أفكار شقالها لما موصي يصلوا كلا أجسمها واحدة شدالك وزارة المعدن تمرت السومال لأنه يسوقنا كهذا أفكار أجسمياشة وحيها وزارة المعدن تمرت السومال لأن يوجدوا مياه كوميشن كتمرتها أي هالكاسيق ورنك على وحين مرينا قف كالصوم مضن أو قيمين صح أهل سمية وفهمك يشروع هيدا شغالها يضل الراعي إن ما أنت قف والبسيسة أنا أسمعني لكن guud ahaan shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo macdanta runtii waa shaqaale hawlkara shaqadoodana si wanaagsan oo qurux badan agaasimayaal madaxa iyo hadday shaqaalaba tahayba abaalmarinta la idin siinaya waxa weeyaan haddii awal loo odhan jiray faraska usha waxa lagu dhuftaa haga sii badiyo anagu wanaaga waxaan idigu sameeynaayeen idin xusaynayeen iskuukin yeedhayna waa dadaalka haga sii badiyaan qarankana wuxuu rajaynaynaa halka maanta uu joogo qoloba meel bay soo gaarsiisay inay inaguna maanta aynu halka aynu joogno ka sii qaadno waan wada hambalyeynaya dhamaantood shaqaalaha ee wasaaradda tamarta iyo macdanta inay yihiin shaqaale karti wanaagsan oo shaqadooda sida ugu wanaagsan uga soo baxa inta maanta la soo maamusayna ugu hambalyeynaya guusha ay maanta ka gaareen sanadka wixii ay soo qabteen abaalmarinta ama mahadcelinta ay wasaaraddu ama maamulku siinayaan shaqaalaha ku leeyihiin wad mahadsantihiin waxqabadkiina horta qiimo aad u fara badan oo aad u ballaaran buu noo leeyahay haddaan shaqaalanahay dhinaca madaxdana waxaa mataqaan noo joogtaa madax xaqiiqdii markasta oo danta mataqaan shaqaalaha ama danta shaqada ama wax kasta oo danta aad mataqaan ula xiriidho saadaal wanaagsan iyo kalsooni aad ugu tagi karayso markaanu sixid u baahanayna saxa tartan weeye nolosha gabigeeduba qof kastana wuxuu taro tacabkeedu uu heli caawa tartankii ay wasaaraddu ku jirtay shaqaaluhu in baa tacabkii caawa u bislaaday oo caawa guranaya dalagana marka la beero marma soo wada baxee wuu kala dambeeyaa waxaan ku rajo weynaa inta kalena sanadka dambe inuu bislaan doonaanoo aanu goobjoog u noqon doono Khalid Jaamac Qodax gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu isdul taagayay ahmiyadda ku jirta in la dhiirigeliyo shaqaalaha isagoo soo bandhigay siyaasadaha lagu horumarinayo shaqaalaha dawladda Soomaaliland hay'adda shaqaaluhu runtii markasta way ka warhaysaa shaqaalaha afar qodob baan markasta xooga saarnaa kow shaqaalaha in la dalacsiiyo oo darajada ay joogaan ay ka tagaan talabaad in ay helaan tababaro joogto ah saddex in la qiimeeyo oo runtii qofka lagu yiraahdo waad mahadsan tahay waxay ka mid tahay waxyaabaha kor u kordhinaya ama kor u qaadaya shaqada wanaageeda qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan runtii inaan hay'adda shaqaaluhu ay runtii xooga saari doonto sanadkan in shaqaale weynaha qaranka ay u qaban doonto xaflad guud oo runtii wasaaradaha iyo hay'adaha lagu xusi doono shaqaalihii ugu sii fiicnaa geesta kale markaasi waxa ka hadlay Dayib Aadan Xaaji Cali gudoomiyaha komishanka maamul wanaaga iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca amniga wasiirka wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Salebaan Warsame Guuleed wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo Cabdilaahi Faarax Cabdi wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland ayaa iyaguna halkaasi hadallo dhiirigelin ka jeediyay waxaan u mahadcelinaynaa shaqaalaha 14 xubnood ee caawa halkan xafladan qiimaha badan leh loo qabanayo waxaynu ilaahay ugu mahadinaynaa dhammaanba shaqaale weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tayadiisu intii aad iyo aad bay institutionada xukuumadda kala duwan oo dhan maanta ay uga duwan tahay sidii ay ahaan jirtay xalfadda waxa looga jeedaa waana dhiirig abaalmarin weeyo qofkii dheereeyay in la abaalmariyo kalaga dheereeyana in la dhiirigeliyo oo isna barita u dheereeyo gabagabadiina waxa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii 2021 wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland